Waxaa maanta la soo gabagabeeyay tartanka Jiran Daa'uud ee kubadda koleyga oo iskaga hor yimaadeen kooxaha Hegan iyo sidoo kale Gifty. Labada kooxood ayaa ahaa kulan aad u weyn oo la wada sugayay dhammaan oo taariikhda ku qorneed in galabta ee la ciyaaro oo ahayd kulan aad u xiiso badan 18 bisha Agoosto maalin Jimco ah. Kulankan ayaa waxaa wada sugayay taageerayaal aad u fara badan iyo ciyaartooyda si ay u soo bandhigi lahaayeen ciyaar aad u wanaagsan. Galabta iyo ciyaartaasi waxa ay ka dhacday garoonka kubadda koleyga ee Wish ee dhaca degmada Cabdicaziz. Ay ku soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan, waxaana ka soo qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo labada kooxoodba ay markaasi kala taageerayeen. Kooxda kubadda koleyga ee Gifty ayaa markii saddexaad ee ku guuleysatay tartanka Jiran Daa'uud iyadoo maanta ay ka adkaatay dhigeeda naadiga Hegan oo ay uga adkaatay 76 iyo 55. Gifty ayaa markaasi ku guuleysatay koobkan oo noqon doona koobkii saddexaad ee Jiran Daa'uud ay ku guuleysato. Xidiga dhowr oo muhiim ah ayaa guusha ee qayb ka geystay naadiga ee Gifty Star iyagoo ay soo bandhigeen لاعبين aad wanaagsan. Sidoo kale ciyaaryahanka ugu wanaagsan waxaa la siiyay ciyaaryahan Cabdallah oo kamid ah kooxda Gifty. Sidoo kale waxaa isna abaalmarin kale la siiyay Cabdifataax Buukale oo isna noqday madaalaha naadiga Hegan laacib kale oo kamid ah laacibiinta ugu wanaagsan ee kubadda koleyga. Tartankan ayaa ahaa tartan aad u xiiso badan oo taxane ah, waxa uu soo socday muddo ugu dambeyntiina waa uu soo idlaaday, waxaana soo adkaatay oo koobka gacanta loo geliyay wiilasha kooxda kubadda koleyga ee Gifty oo sanadkan diyaargarow xoogan ee ku bixiyeen sidii ay u heli lahaayeen koobkani. Xidigaha ee Gifty ayaa u dawaaldegay markii koobkii gacanta ee loo geliyay iyagoona sheegay in aad ugu faraxsanaayeen inay tartankan ku guuleystaan. Rajadooda ayayna aad waana urmooday. naadiga Hegan oo sanadkan dadaal badan sameysay ayaa booska labaad soo ciriirsatay iyadoo dooneysay in koobkan qaado walow aysan dhicin in tartankan ay qaado. Waxayna rajeynaysaa tartamada soo socda in bandhig wanaagsan iyo koobab kale inay soo qaadaan.